calanka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay lagu arkay dhankaas iyo Hargeysa. Hambali ayaan waxa leenahay cidda xamaasada badan ee reer Galmudug kuwaasoo waliba Soomaalida oo dhan mideeyeen. Deegaanka Galmudug waa meesha kaliya ee Soomaali oo dhan ku abtirsadaan ee deegaan sidoo kale dadka heer kastaba hamisha laga heliyo halka loo dhayahay heedawa Galmudug. calanka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay lagu arkay dhankaas iyo Hargeysa. calanka Soomaaliya oo 30 sano laga diidi jiray oo siyaasiyiinta Somaliland ay diidi jireen in calanka Soomaaliya lagu arkay Hargeysa, taasoo war farxad leh. calanka Galmudug ayaa inta badan ka kooban calanka Soomaaliya, kaasoo waliba qayb yariisa oo ku jirto ay ka turjumayso nabadda iyo horumarka iyo sidoo kale cagaarka dhulkeena quruxda badan. waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed, qaasatan dhalinyarada Galmudug, hambali ayaan leenahay. sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer waqooyi idikana waa mahadsantiin Soomaali jaceelka iyo sidoo kale sida aad u muujiseen dadka Soomaaliyeed markasta inaadan kala go'i karin oo markasta wax idinka dhaxeeyo oo dadka Soomaaliyeed ay mid noqdaan markay isku baahan yihiin weligood mid ahaayeen. waxaa jirto shir weyn oo hadda socdo oo Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxeeyo, kaasoo Soomaaliya ay ku muujinayso in aan lagu soo xadgudbi karin Itoobiyana qalad weyn ay ka gashay Soomaaliya, taasoo raali galin inay ka bixiso mooyee in kale lama heshiin karo oo Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama ay daris yihiin. Itoobiyana waxay rabtaa inay dekad hesho si ay waxyaabo ugu soo dejisto, laakiinse dekad ay dagayso ay ka dhiganayso meel base ciidan ah inaysan macquul ka ahayn Soomaaliya maadaama xuduudo iyo sidoo kale dhul oo ku maqan yahay Itoobiya. marka waxaan leenahay Soomaaliya midooba.